maalin wanaagsan dhammaan asxaabta la socota janaalka qaraax tube waxaad ku soo dhawaataan kulanka weyn ee Manchester United iyo kooxda kubadda cagta ee Brighton and Hove Albion kaas oo dhici doona caawa 12 saac xilliga Soomaaliya Amex Stadium garoonka Brighton and Hove Albion ay ciyaartaan ka dhici doonta qaraax tube ayaad kala socotaan falanqeynta kulankan ka hor intaan la ciyaarin saadaashaad waad noo soo gudbin kartaa qaybta hoose ee commentiga. Brighton waxay rajeynaysaa qaar ka mid ah ciyaartooydeeda muhiimka ah ee kulankan saxiixyadeedii ugu waaweynaa ay sameysay inay kulankan ku soo bilaabaan. inkastoo kulankoodii koowaad ay soo ciyaareen haddana waxay rajeynayaan in tijaabadii ugu adag ay la maraan kooxda kubadda cagta Manchester United. Romelu Lukaku ayaa la rajeynayaa inuu ku soo bilowdo kulankan kaas oo Manchester United kulankeedii koowaad ee Leicester City ay la ciyaartay kursiga keedka fadhiyay. Jesse Lingard, Nemanja Matic iyo Antonio Valencia ayaa tababarka Manchester United lagu arkay balse kulankan ma ciyaari doonaan. Sidaa darteed waxay ka dhigan tahay Pogba inuu sii ahaan doono maqnaanshiyaha Valencia dartii kabtanka kooxda kubadda cagta Manchester United. waxyaabaha ugu muhiimsan ciyaartan loo daaban doono waxa ay tahay kooxda kubadda cagta Manchester United wax gool ma dhalin labadii kulan ee ugu dambeysay ay banaanka ku soo ciyaartay 2017-2018 hal gool eber waxa ay guuldaro kala kulmeen Brighton oo isla maanta la ciyaari doonaan 13 sano ka hor waxa ay ku guuldareysteen 3 kulan oo xiriir ah inay gool dhalin waayaan. haddii galabta ay ku guuldareystaan inay gool ka dhalin waayaan kooxda Brighton sheekada dib ay u laaban doontaa. United ayaa Premier League gool ka dhalisay 56 kamid ah 58 garoon oo kala duwan ay ku soo ciyaartay balse garoonka maanta ay booqan doonto ee Amex Stadium iyo garoonka Wembley ee Manchester gool kuma dhalin. Alexis Sanchez ayaa gool dhalin Premier League isagoo banaanka ku ciyaaraya ama away ah kooxdiisa tan iyo 2 gool oo Arsenal u dhaliyay ciyaar 3-2 ku dhamaatay oo ay Crystal Palace la ciyaareen 28 December 2017. Sanchez kama mid ahan ciyaartooyda maanta la safartay Manchester United waxaana xidigan uu seegaya kulanka United iyo Brighton and Hove Albion. inkastoo saadaasha ugu badan ee ciyaartan la saadaaliyay wargeysada in kooxda kubadda cagta Manchester United ay 2 gool iyo gool ku badin doonto.